halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa muujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo barta internetka bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo naga dhageysanaysaan waa maalin axad 3 Juun sanadka 2018 saacadu waa 2 duhurnimo oo gow ah qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxda Soomaalida oo maanta magaalada Baydhabo uga arrinsanaya xaaladda amni ee dalka kulankaasi waxa uu furmi doonaa maanta haddaba shirkan muxuu uga duwan yahay shirarkii hore madaxda Soomaaliyeed dabcan horey mudnaan badan bay jireen haddana kulamadan intooda badan waxay u salka ku hayeen balsidii nimankan awoodooda la weeqay oo meelaha qaar hadda ku haray oo dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed ku hayo sidii dalkan looga saari lahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka cusub ee dalka Talyaanigana waxa uu u digay muhaajiriinta waxa uu leeyahay boorsooyinkiina rarta Britain maanta waxa laga xusayaa dadkii sanad ka hor lagu laayay weerar ka dhacay magaalada London waxa kale oo aad maqli doontaan dadka duurka deganaa baan nahay waxaan ahayn dad degaankoodii iyo guryahoodii iyo hadii ay biyahoodii jooga nin walba meel kasta u gaadhay eelkadeeda waxa nagu dhacay laba qax doorka horena waa noqoxnay doorkana xaqana aan u soo qaxnay waa xaaladda dadkii ku barakacay dagaaladii dhawaan ka dhacay deegaanka Tukaraq qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka waxaa diyaar u ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo fadhiya stuudiyaha BBC-da ee London. mahadsanida Gele. Shiinaha ayaa ka digay in wadahadalada ganacsiga ee u socda iyaga iyo Washington ay noqon doonaan biyo coldaanshay haddii aanu Maraykanku uu soo saaro cashuuro iyo cunaqabatayn dheeraada oo cusub. hadalkan ayuu Shiinuhu soo saaray kadib wadahadallo ay yeesheen ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Liu He iyo xogayaha ganacsiga Maraykanka Wilbur Ross. Beijing ayaa sheegtay nidaamka wadaxaajoodka lafdhabar u ahaato in aanu dhicin dagaal ganacsi. Mr. Ross ayaa wadahadaladii u dambeeyay ay labada dhinac yeesheen ku tilmaamay wadahadallo saaxiibtinimo ah oo toos loo wada hadlay. ra'iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha ayaa booqday Washington maalmo kadib markii uu Maraykanku ku hanjabay inay cashuur dheeraad ah ku soo rogayaan badeecad gaadhaysa 50 bilyan oo Shiinuhu u dhoofiyo Maraykanka. wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Talyaaniga ee xisbiga midigta fog Matteo Salvini ayaa maanta booqday magaaladaasi Sali isagoo sheegay inuu ilaalin doono xuduudaha dalka Talyaaniga. waxa uu booqan doonaa magaalo xeebeedka koonfurta ku taalla ee Bozzalo oo ay jimcihii soo gaadhay doon siday muhaajiriin ka soo kicitimay wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika. sabtidii ayuu meel uu kula hadlayay dad ka sheegay in la gaadhay xilligii ay dadka muhaajiriinta ahi alaabadooda iyo boorsooyinkooda urursan lahaayeen. waxa uu sheegay in loo baahan yahay heshiisyo wanaagsan oo lala galo dalalka ay dadkan u soo kicitima Yurub soo maraan iyo wadamada ay asal ahaan ka soo jeedaan si loo yareeyo muhaajiriinta ku soo qulqulaya dalkaasi Talyaaniga. warbaahinta Turkiga ayaa sheegtay inay 9 qof oo muhaajiriin ah ay dhinteen midna la laayahay kadib markii doontii ay la socdeen ay ku qaraqday xeebta gobolka Antalya. 4 qof oo kale ayay badbaadiyeen ciidamada xeebaha Turkigu. warbaahintu waxa ay sheegtay in doontan oo 15 qof ay ku xumaatay meel ka baxsan degmada Demre oo ku taala koonfurta Turkiga halkaasi oo ay dalxiisayaashuna ku badan yihiin. saraakiisha Nigeria ayaa waxa ay sheegeen in kooxo looda dhacda ay ku dileen gobolka Zamfara ee waqooyiga dalka dad ka badan 20 qof. kooxdan tuugta ah oo wadata mootooyin ayaa dadka rasaas ku furay guryahoodiina dab ku qabtay. dad isu xil saaray ammaanka deegaanka ayaa isku dayay inay iska dhiciyaan balse dhowr qof ayaa iyagiina laga toogtay. bilihii lasoo dhaafay 10 qof ayaa ku dhintay iska horimaadyo dhex maray kooxahan tuugta ah iyo dadka deegaankaasi. dhibaatooyinka waxa ay bilaabmeen dhowr sannadood ka hor balse imika ayay kasii darayaan. halkaad warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. Britain ayaa maanta laga xusayaa sanad kadib weerarkii argagixisada ahaa ee 8 qof ku dhinteen lagu soo qaaday London Bridge. dowladuna waxa ay ka digtay in khatarta ka soo wajahaysa Britain argagixisada islaamiyiinta ah iyo kooxaha xagjirka ah ee cunsuriyiinta ah ay sii kordhi doonto 2 sannadood ee soo socda. dhowaan ayay dowladdu daawacaysaa qorshaha uga yaala la dagaalanka argagixisada iyadoo hay'adda sirdoonka ee MI5 ururada kale ay la wadaagi doonto macluumaadka dadka ay ka shakisan yihiin. saraakiishu waxa ay sheegeen inay tani kor u qaadi doono khatarta ka iman karta dad ka badan 25,000 oo qof oo xogtooda ay hayso hay'adda sirdoonka ee MI5.
Sir Peter Vahi oo hore u ahaan jiray madaxa booliiska magaalada Manchester ayaa sheegay in madaxda booliisku ay warwar ka qabaan in booliiska la dhimayo ay adkayn doonto in lala tacaalo sidii loo ogaan ahaa khatarta ka imanaysa dadka weliba dhalinyarada ah ee xagjirka laga dhigayo waxa aanu yidhi. waxaad u baahan tahay dad taga dugsiyada, kilaabada dhalinyarada, masaajidada, macbadyada kale si markaa macallimiinta deegaanka iyo kuwa la shaqeeya dhalinyaradu ay xidhiidhka ku kalsoon yihiin oo marka werwer uu yimaado ay odhan karaan kuuna sheegi karaan wiil dhalinyaro ah haddii ay shaki ka qabaan. ugu dambayntiina xogayaha maaliyadda ee Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa u sheegay madaxda maaliyadda ee ururka G7 inuu madaxweyne Donald Trump ka hadli doono warwarka ay ka muujiyeen cashuuraha la xidhiidha badeecadaha ay u soo dhoofiyaan Mareykanka marka la isugu yimaado shir madaxeedka ururkan oo ka dhacaya Canada toddobaadka soo socda, balse waxa uu diiday dooda ay ku sheegeen in ay Washington doonayso inay dhinac marto xeerarka u yaala ganacsiga caalamka. kadib kulan aad u kululaa oo ay yeesheen ayay wasiirada maaliyadda ee 6 dal oo xubno ka ah ururka G7 si adag ugu cambaarayeen go'aanka uu maamulka madaxweyne Donald Trump ku qaatay inuu ku kordhiyo cashuurta birta iyo aluminiyamka. wasiirka maaliyadda ee Faransiiska Bruno Le Maire ayaa sheegay in ay maalmo kaliya ka hadheen dagaal ka bilowda dhinaca ganacsiga ayna ku xidhan tahay inuu Mareykanku xiisadaasi dejiyo. intaasina waxa ku eeg warkii dunida aan idinku celiyo geele iyo qaybaha kale ee barnaamijka. aad ayuu mahadsan yahay cabdixafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinaya warka caalamka. dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka. aan ku bilownay magaalada Baydhabo ee xarunta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo shirka golaha amniga qaranka ee Soomaaliya, waxaana shirkan ka qayb galaya madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda dhexe federaalka